السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا janaalkayga Firdawsi isku filan waa mar kale iyo new video biliis haddii ay tahay marka kugu horeyso oo janaalka soo booqato waxaan ka codsanaa inaad subscribe gareyso asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaaba isku soo noqod wanaagsan ayaa idin leeyahay alxamdulilah ilaahay mahad oo dhan u sugnaatay isoo celiyay mar kale anoo caafimaad qabo waxaan rajeynaa idinkan inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaana watacaala allah caafiyo inta dhimata alla subxaana watacaala allah u naxariisto inta safarka allah u fududeeyo qof walba oo muraadkiisa alla subxaana watacaala allah u sahlo biliis waxaa mar kale idinka codsanayaa wiil yar anaga xanuunsan inuu ilaahay subxaana watacaala noo caafiyo noogu soo duceeya waana mahadsantihiin walaalaha hore ugu duceeya aad iyo aad u mahadsantihiin ilaahay jiri xasanaad allah idinka siiyo intaan أولاد هيسن أولاد باريين وطيبين وقرة العين الله سبحانه وتعالى الله يرزقه انتي حفصية وكجران الله سبحانه وتعالى الله وصوصار انتي كحمود كمقين وقال كقاضتي انت إلهي سبحانه وتعالى قال هذا الله وقسو عليه قفل ومراد لنا مراد كيسا الله سبحانه وتعالى الله وسهله صحابي سيدا إن شاء الله بارتي وانك هوريتوت قيبت هوريدين لو داقو حياتو حكاد ليني قامضة taana taa idin sheega waxay ahayd qaabka loo qaato dadka iskoolaadka azhar dhigta iqaamooyinka siday u qaataan soo maxaa la dhahay insha allahu tacaala iqaamada inta aan shalo kasoo hadlay intaan azhar intaas kaliya u kala baxdaa biidnillah soo marka waxaan rajeynaa fiidiyogan inaad meel dheer ah gaarsiisaan oo sii sheer garaysaan biidnillahi tacaala sida dad badan oo walaalaha u anfaco biidnillah waana mahadsantihiin mar walba oo idin mahad celinaya mahad celintiina kama daalo si maxaa la dhahaa qofka markuu horta azhar bilaabayo waa inuu iqaamo uu haysto oo iskuul kale ah wadanka imaada azhara ilmo iska geysanaa ma jirto horta taas walaalaha inay ogaadaan waa mar walbaba dada aska ku dhahaan waad samayn kartaa laakiin ma jirto taas waxaa la dhahaa waa inuu laazim qofku iqaamo iskool kaletood wuxuunu kale uu ku qaato kabacdi caruurtiisa azharkay karaa caruurtiisa markaas uu azharkay karaa maxaa la dhahaa qaabka marka iqaamada u qaadanaysid sanadkaas horta iqaamo aad haysato iskool kalead kasoo qaadatay markaa kasoo qaadatay iqaamo sanad aa haysatay ilmahaaga iskool ka geysay aa rajiiskarayska keliya azhara waxaa laga maraa ilaahay subxaana watacaala xaalada uu yahay because cunuga marka hore waa inaad dhiig kasoo qaadid markaa dhiig kasoo qaadid intaad dhiigga kasoo qaadin foomka horta waxaa la tagayaa bucuuth waxaa la dhahaa meesha dadka waaweyn ay wax ku bartaan iqaamada laga soo qaato office ku yaalaa la tagayaa foomaa buuxinaysaa cunugaaga magaciisii wixiisa dhan ku wada waxaynaya foomka markaa yar online ka buuxisid waa soo qaaday waaga anaka iskoolka bilaabayna maysa lahayn waxaas laakiin markaa kan yar 2 sano ka hor aan kasoo qorayay 2 sano ka hor saas ku arka laakiin markii hore kow anaa ilmaha kasoo qoray saas meesay waa tagna foomka soo qaadane dhiiga ilmaha kasoo qaadan soo waa ina horta marka hore ilmaha dhiig kasoo qaado ilmaha dhiig markaa kasoo qaado meeshii aa foomka kasoo qaaday ayaa geynaysaa adoo maxaa la dhahaa warqado oo geed warqadaha oo dhiiga soo qaaday iyo dhalashada iyo baasaboorkaaga iyo cunuga baasaboorkiisa iyo waxaasoo dhan malaf aad u sameynaya yacni foom aa usoo gaday wixii oo dhan aa wada gelgelinaya meeshaasaa geynay laazim iqaamadaada inaa wadatid laazim inaa baasaboorkaaga wadatid baasaboorka cunuga inaa wadatid dhalashada inaa wadatid waxaasoo dhan inaa wadatid waa laazim kuga ah bas markaas soo wixaysid waxaa imaanaysaa meeshii way kuu saxiixayaan haddana qayb kale kuu saxiixaysa haddana qayb kale kadib meel sarwad la dhaho sarwad dadka azhar iqaamada ka qaata yaqaano madiinata nasr ku taalo makram cabeyd ayaa lagu soo dirayaa meeshaas qaybta sarwadaa keenaysaa war hal warq way kaa reebana hal warqaday ku siinaan qaybta koro sheeqyaasha joogaan aaday ku dhehe qolba maraa gelay marka ilaa 2 meel ama 3 meel kasoo saxiixe waa soo celinay koobiyaala kasoo sameynay ayaga u keenaysaa kabacdi warqaday ku siinaan iskoolka geeyay ku dhahayaan iskoolka geynay iskoolka haddana mid kale ku qoray way ku siinayaan waa ku celinaysaa haddana warqaday kusoo siinayaan iskoolka keenaysaa khalaas markaasaad faray noqonay horta tacabka ugu weyn inta iqaamada la gaarin iskoolka laga maraa sida ilmaha azhar oo uga rajiis gareynaysa
walaalayaal maaha inaa idinka nixinaa laakiin waxaan rabaa wadada saxda inaa idin sheego hadhowti aada dhib u arkin markaa imaatid insha allahu tacaala aniga waa soo maray anoo ku qanacsan oo ku faraxsanaana soo maray alxamdulilah soo hooyooyin badanna way soo wada mareen ani horteyna waa lasoo wada maray because masar 30 sano ka hor Soomaali usoo gooreysay ay soo degayeen marka waa wada la wada maro hooyada dhib walba marayso iyo aabaha dhib walba marayna awlaadooda dartood waa wixii u sameynaya maanta maxaa la dhahaa meel markaa tagtid iqaamada in lagugu jeeso wax walba lagu dhaho masaarida kuwa meelahaas jooga iqaamada noo ixtiraam markii runta laga hadlo anyway aan usoo laabto maxaa la dhahaa mowduuca aan ka hadlayay soo intaan iqaamada gaar waxaan rabaa inaa ogaatiin soo saasaa cunuga kusoo rajiskaraysato cunugaaga iskoolka ku bilaabay waqtiga iqaamada markii iqaamadii kaa dhaceysay oo aa gaarto oo iqaamada aad waxaysanaysid maxaa la dhahaa waa inaad foom soo qaadatid bucuudaa tegay foomka iqaamadaa soo qaadanaysaa foomka iqaamada markaa soo qaadatid waa buuxinaysaa cunug walba sawiraa u saaray ilmahaaga adi sawiraa saaranaysaa foomkii u buuxisay dhalashadii koobiyaasha meeqaa marka la iska rabaa wadankan in lacagna ka sameynayo waxaa ku ogaanaysaa afar koobiya each lagaa rabaa baasaboorkaaga 4 cunuga 4 dhalashada 4 waxa dhan aawadi 4 koobi laga sameynaya hooyada maadaama ilmaha dhan ayada loogu daraayo hooyada baasaboorkeeda cunug walbo iqaamo loo xareyna waa loogu daraa soo hooyada baasaboorkeeda iyo iqaamadeeda min 4 laga sameynaa hadday 10 cunug leedahay hadii hal cunug leedahay min 4 loogu ridaaya saas oo la socdo insha Allah waxaa la geyn jiray awalka hore oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa sanadka hadda xataa aan geynayni sarwad meesha inda dhaha makram cabayd ku taalo laakiin hadda waxaas way dhamaatay iskoolka geynaysaa hadda annaga iskoolka Bukhaari la geynaa iskoolaadka kala warma ka hayo iskoolka geynaysaa iskoolka kuu gudbinayo oo kuwii iqaamada u gudbinayo kadib waa lagu soo wacayaa markii lagu soo waco waxaa laga yaabaa in week lagu soo waco laga yaabaa 2 week lagu soo waco laga yaabaa bil kadib in lagu soo waco Allahu a'lam soo waxaa tagtay marka qaybtii oo bucuudaa tagtay sawir laga soo qaadaa sawirka markii laga soo qaaday ma aha inaa inta tagtay sawirka dhag lagu sii aaska soo laabanaysid meesha boorka iyo magaciisiga aad yaabaysid oo ilaahay xalkeedu oo musqulaheeda aad hawaysanaynin maanta dhan fadhinaysaa halkaasaad maanta dhan fadhinaysaa markii dambe waa lagu waca qofku ilaahay uga soo qaado saacad 2 saac in loogu waco way dhici kartaa oo 2 saac gudahood saacad ma jirtay 2 saac sawirka looga qaado ama saacadaha fadhinaysaa 7 hours 8 hours ayaa meesha la fadhiyaa soo sawirkii laga soo qaaday caajil wax la dhahaa jirto yani degdegsiimo 250 gini oo ziyaadaha la iska qaadaa 220 gini waa la iska qaadaa degdegsiinaa dalbanaysaa waa soo baxay 2 week kugu soo baxaysaa dadka qaar laga yaabo inay week ugu soo baxdo laakiin always is 2 weeks waa tookada hore anay idinla wadaagays marka iqaamada qaadanayo November wixii ku dhac intay degdegsiinay lacag iga qaateen hadana degdegsiinada leeguma dhufan markii aan gaaray maadaama taleefankayga uu xirnaa aad muxtaaj ugu ahay waxaa la iska kii daba wareejinay isbuuc lacagta baa u raacay iga dhamaatay marka alxamdulillah ilaahay ma dhan u sugnaatay wax walbana waa inaan ku sabarno adduunkan dhibaatadiisa way badan tahay laakiin kuwa saabiriin ilaahay subxaanahu wa ta'ala Allah naga dhigo soo markaas soo maxaa la dhahaa lagu soo siiyo mawcidka oo ku soo doonanaysa kadib waa noqonay maxaa la kulmaysaa ayadaas laftigeeda hadana mushkilad noqota hadeertaan oo aad masar sanad walba waxay fududeen waxay adkeeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo dhib yareeyo markii iqaamada kaliya waxaa loo fadhinaya ayadana saacado morning ilaa night time والله العظيم قبلها قار 7 قريود انت كبحان 7 كسو نقنا داين marka aad tacab u tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah noo fududeeyo soo saasa iqaamada azharna lagu qaataa insha Allah maxaa la dhahaa ani hadda idin hadlaa bal iigu soo duceeyay gabadhayda oo yar oo 12 jir ah iqaamadeeda November asla wada xareeyay ayada bis iga reebteen 10 mar waa u noqdo ilaa November ilaa hadda marka soo noqdo aan tagaba waxa la dhahaa isbuuc algaay isbuuca soo socda imaam markaan tagana isla sidii su'aalna lama weydii karo masaarida marka runta laga hadlo indhihi qaali ka gelinayaan soo marka
أنا luqada aqaana alxamdulilah anoo la hadlaayo asaas laygu qayliyaa maxadallah qofki aan luuqad aqoonin oo niyad jabaayo wadanka cusubna uu kasii daradaas waa idin dhaha mar walba iskoolaadkaa ku degdegina qofka inuu luuqada soo barto cilmihii aad soo dhistid markaas kadib yani fiican marka qaybta dadka waaweynna way jirtaa insha allah ayadana mara idin faahfaahi doonaa biidnillah oo mahadsantii soo dhawaada ayaa idin leeyahay please 10 kun wax yar ayaa nooga dhimana gaarsiiya asalaamu calaykum waraxmatullahi